Waxaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ka furmay shirkii loo ballansanaa ee dhamaystirka u ah hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya, kaas oo ay ka soo qaybgeli lahaayeen dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa shirkaasi inuu ka dhaco gudaha xerada Xalane, gaar ahaan halka loo yaqaano ee xerada Afisyooni oo ay maamusho beesha caalamka, gaar ahaan hay'adaha qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah safiirada caalamka. Waxaa xilligii loo ballamay goobta soo gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada kale ah Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxayna durbadiiba bilaabeen shirkii hordhaca u ahaa shirka loo ballamay. Waxaa goobta isaga maqnaa oo aan imaanin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani, kuwaas oo ka biyo diiday habmaamuuska ammaanka goobta shirka uu ka dhacayo oo sida la sheegay ay sugayaan ciidamada koofiya casta dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dusha kala socday. Waxaa fashil ku soo dhammaaday dadaallo iyo isku dayo ay sameeyeen safiirka dowladda Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo qaabilsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan, kuwa oo markaasi ay isku dayeen inay ku soo qanciyaan madaxda shirka ka maqan si ay uga soo qaybgeli lahaayeen. Labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ayaa horey shuruudo adag ugu xiray sida ay uga hor fadhiisan lahaayeen madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ka oo imika isagu shirka goobjoog ka ahaa. Hase ahaatee, dhinaca madaxweynayaasha goobjoogga ahaa ayaa waxa ay halkoodii ka sii wateen jadwalkii shirkii loo ballamay maanta, waxayna u qabsoomay shirarkii hordhaca u ahaa shirka loo ballamay. Markii uu soo gabagaboobay kulankoodaasi ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube, isagoo sheegay in shirkii si buuxda uu u furmay isla markaasina ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxdii loo ballamay marka laga reebo buu yidhi madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, isagoona u rajeeyay inay maalinta berrito ka soo qayb geli doonaan. Beri ayaa waxaa loo ballansan yahay inay shirkaasi ka soo qayb galaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, kuwa oo iyaguna waqti laga siiyey sida ku cad jadwalka shirkaasi inay ku yeeshaan. Isku soo wada duuboo shirkan ayaa waxaa laga dhowr sugayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah, kuwa oo wax ka qabad u noqon doona habkii ay u qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo dhici lahayd gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda iminka ka jirta Soomaaliya ayaa waxa ay waqtigeeda ku dhammaaday 8 bishii February ee ka soo gudubnay, waxaana la rajaynayaa in shirkani ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku ool ah, kuwa uu horseedi kara dalka Soomaaliya sidii uga dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay.